abayo horta soo dhawow marka koowaad marka labaad waxaa inooga warantaa dhibkan hadda ku gaaray sidii kow uu ku bilowday iyo sababta uu ku yimid in dhibkan ku gaaro. abuu horta dhibkan wuxuu igu soo gaaray isdifaac ani aa isdifaacayo oo in lay kufsado la rabo kufsi aa iska difaacayo aa dhibkan igu soo gaaray markaa qeeliye oo aa isdifaaci rabine naagaa la ii wacday eejidii waa taasaa sax wejigayga kule waa wada jeedin meeshas maxaa laiga garaacay bir sax 5 naag iyo maxaa laigu dilay 1 nin ma fahmaysaa ninka markaa si kasta korkayga u diiday naagu ii wacda meel ii fiyo ma leh lug hadhiin gacan hadhiin ma fahmoosiin sax abayo macnaha yarka ama ninka rabay inuu adiga ku kufsado hore mu isku taqaaneen si fiican wax wiil walaalkeeyo ahay waxaa ka galabsada ma lahan laakiinse ani horaa liiga soo kufsaday xaqaa laiga soo galay hooyadayaa laiga soo agwade amni aa magaaladeedii aa ku joogo hooyaday macaan aa ku garab seexdo waqti aa xaalad xun ku jiro aa waaye xamaraa uga soo tagay intaa imaade koley wiilkaas yaa si saaxiib bay ahaayeen fahmaysaa okay igaadi yarkii dhibaatada kuu geystay ee xamar kugu kufsaday iyo ninkan hadda ku dilay ee rabay inuu ku kufsado ma saaxiibbay ahaayeen waa gartay waxaa lii waana la shirqoola aniga gabaraa iridda iisoo gargaraacday markay iisoo gargaraacday iriddaa furay ninkana wuxuu degnaay gurigeena guriga ku dhegan mana ka filanayna ani haddana asi irid muuse iisoo gargaraacin gabar baa iridda iisoo gargaraacday gabadha ayaan la dhahaayo waa taqaanin aa igu arkayseen walaasheed iridda iisoo gargaraacday waa ka furay markaa ka furay ninkii irid aa igu soo booday hadal moo igu darsan wax moo igu darsan diricaawa tuusas iga kala jeexe sariirtuu igu tuuray si kasto intii awooddeeda ahayd karaankii sax intaas kabacdi markaa isdifaaci waayo waa qeeliye markaa qeeliye bildinka dad badanaa degan dadkii inta isku soo baxeen sheekadii muxuu bedelay inay gabdha isdagaaleen waali horta kow gabdhaha intaan bay igu dhufteen feerkaas intaas ninkaa igu dhuftay iyo ceejidaas inta buruusaa liiga garaacay madaxa maanta raajaa liiga soo saaray madaxa inta buruusaa liiga garaacay intaan kalene iyo waxaan naagaa igu dhufteen okay waxaan ku weydiinaa dhammaantoodba makuu gacan qaadeen gabdhaha iyo ninkaba all of them kulligood qof ii reebta wax ma leh gabdhaha iyo adiga ma xumaata idinka dhexeeyda ma dagaal baa idinka dhexeeyey hore hal qof oo xumaata naga dhexaysa ma jirto hal qof oo wax naga dhexeeyo ma jiro okay wiilkan iyo wiilka hore ee dhibaatada kuu geystay ee muqdisho kugu kufsaday inay saaxiibba ahaayeen adi hore ma u ogeed mase gadaala ka ogaatay horey waa u ogaay laakiinse ma isdheheenin qofkan waa waxaas buu kugu samayni kooskii hore waa ninka ma filanaynin wax anina wax mar kasta wax saani geliyo waxaa waaya daacadnimo ani aa qabo ayuga horta muhiimadda waxaa waaye gabadhan horta dhaawaca ku yaalla waa muuqdaa waan u jeedaa rag iyo dumarna looma kala harin sadar muuqda su-aalka dhan laakiinse wax walba horta ayadaa og ma fahanti su-aal badan horta maanta wax ma tareyso waayo wixii ku dhacay inay soo xasuusato waxaa waaye qalbiga xanuunaya marka baa isdeji maya dhaaf anoo dilan oo dhiiggi ka socdo oo neef qabo xabsi lay seexiye fahmo abayo horta ha ooyin waxaan kugu dhacay qadaray ahaayeen muqdisho wixii kugu qabsadana qadaray ahaayeen tanna waa qadar ilaahay agtiisana cadaalad waa ka heli doontaa adduunkan hadda aad joognana insha allah cadaalad waa ku helaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhanaa ku garab taagan dadkii soomaaliyeed
garab idinma weydiisanin maantaan garab u baahanahay صح صح أبايو fahmo horta fahmo maanta waxasaan u galay dad shisheeye oo ka fogmaa waa dad lacayada saaxiibaheeda ahaayeen sometimes saaxiibtinimada qaar ma fiicno dadka saa u gala maanta waa dad saaxiibaheeda waa dad ay aamintay waa dad soomaalinimo hal qabiil ma aha dad isku jiro waay waa dad saaxiibtinimo ee guri kula nooleed waay dadka maanta saa u gala gabadhaan oo nin ugu hiiliyey فهمو يا مريم هذا إن شاء الله يركي عبد القادر جيد لي الله سماها يركا si fiican sawirkiisa waa ii soo dirtay dhammaan social mediaha waa lagu faafiyey sawirkiisa cabdiqaadir jiidley okay gabdhihii dhibaatada kuu geystay imisay ahaayeen gabdhaha dhibaatadii ii geystay laba waxaa la lahaa laba maryanaa la dhahaa mid buraaqaa la dhahaa midna waxaa la dhahaa ayuubo baasha u keena okay ayuubo abaayo horta barasho wanaagsan ani shacni beebiyaa lidhahaa asxaabta dhammaan waxaa ku dhacdaa soomaali waa u jeedtiin shacni raali noqo waa ku aqaan shacni si fiicanaa ku aqaan abaayo shacni raali noqo waa marka madaxa dhan ciila ahaay halkaas ay xanuunayso waa isku dhex qasanaan dhan shacni ayaa baayo shacni beebi waa horta gabadhan horta ani waa caawinoyaa waa gabor walaashay ah yacni waxaa ka damqaday dhibaatada ama dhaawaca ku yaalo ma fahantay haddii la dhaho maantoo dhan yacni hadalka ama xasuusaha ku badinayaane wax faa'iido ma keenayso horta kenya qadartan waa qadar rabbi wuxuu ilaah kuu qora kugu dhacaayo fahmo waxaa dhihi karnaa waa simirkii oo qof ah waa qof aad u dulqaad badan wallaahi tan xigto kenya horta sharciga ka jiro waddan sharci la-aan maahan maanta haddii qof aa dhaawacdid ama qof dhibaata u gaarsiisidne haddaa qof maanta dhaawacda ama dhibaata u geysatidna dee kiiskeeda inuu zakaarin qof walba og waddankaana waddan sharci ka jiro waaye gabadhan xaqeeda ilaahay ha usoo dhiciyo haddii aana horta khaasatan gabdhaha soomaaliyeed maadaama horta ee ka bilaabata sheekada nin waxaa dhihi karaa gabdhaha soomaaliyeed garab aa isa siino gabadhan walaasheena waa 12 qof oo isku tagtaa maanta wax u qaban karto sax waa wax u qabano aan moraal siino aan niyad u dhisno dadka maanta dadka dhan way wada siman yihiin fahmo waa qof xanuunsan waxay qabtaa asmay qabtaa neefay qabtaa maanta qof 5 qof aa sheegay 6 qof in lagu dilo mudan maaha marka maasha allah fahmane soomaali maxamed daana gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha walaaleed garabkeeda nahay waa gabor walaasheena mar walbana hiil iyo hoo garabaa ula taagannahay intana daawanayso ay adinkoona iskala saaraynin soomaali maxamed oo dhan way aaminsantahay gabadhan dadaa waxaa arkaya sheekada afaara qabiil iyo waxaa loo joogin u bedeleen sheekada qabiil ma joogto gabar soomaaliyeed maanta sidee ugu kacnaya taagantahay ana qabiil qof iga ah ma jirto habeenkii lee xiray 1 qof oo waxaa ii taagneed ay qabiil ahayn ilaa subax hurd ii seexanin ii soo dhafray cunto darteed ii cuneen qabiil wax looma jirto ana qabiilkayga waa jeclahay dadka kalena waa jeclahay insha allah dabcan hawshaas waa lagu jiraa oo ninkaas in la soo qabto cadaaladda la hor keeno waaye haddana fahmo waa tanaa oo waa idin soo hor fadhiisatay qof walba oo fahmo rabay inuu taageero oo rabay inuu fahmo la xiriiro fahmo nambarkeedana waa idiin sheegaynaa haddana waa taasaa walaalaha taageeraya ee giftiga u diraya dhammaantiin waa mahadsantiin adduuniya aakhira allah idin barakeeyo fahmo waa walaashiin qofkii soomaalinimo ugu diraayo qofkii dumarnimo ugu diraayo qofkii walaalnimo ugu diraayo qofkii ehelnimo ugu diraayo dhammaan ummadda soomaaliyeed gabadhaas soomaaliyeed waxay idinkaga baahan tahay caawinaad taageerid dhammaantiinba aniga kama seexan wallaahi habeen dhowed maraan la hadlay waa seexa waaye ciil bay la seexa weysay ma fahantay 2 maalin waxa uma cunay tiri ma 3 maalin sababtoo ah waxaa waaye
gabar maalinta qof nabarka soo gaaray ilaa afkeyga ilaa daaf wax ma saarin haa gabadha dhibka qofkii u geystay oo koos aan wax anoo la gurigeyga haa anoo suuxsanaa liiga soo jiiday ani xabsiga markii qof soo jeeda ma ahayd anoo suuxsan isbitaal meesha liigeelaya xabsi liigee بس اسدجي صباح وحكوا عن بس فاهمة ما أنت هدا شلي صاحب أو كتير سند مس خوف كلا أو كتير سند ما أنت فاهمه دد كذا دحد وجرتها فاهمة ما أنت وحابت كوجرا عنا وعدد كذا شلا